marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala noo soo tageliyay maanta in halkaan 29 November 2021 in doorasho loo qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo 180 beesha naasiye in halkaan loo qabsanto aad u mahadcelinayaa inta kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii koonfur galbeed suurtageliyay sidoo kale inay habsamidan saa u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo waxaan rabaa inaan ku darsado doorashooyinka ka socda koonfur galbeed calaf ayaa lagu waayi karaa ma aanay cadaalad darku ma lagu waayin karo taas waxaa cadeen u ah saawlu socotiin dhammaantiina ama dadka inta badan iyo yaqaano ama saaxiibada siyaasadda aan ku leeyahay anigu waxaan ka tirsanahay oo aan ka tirsanaya hadda waan ka tirsanahay hore ugu tirsanaa xisbi mucaarad ah oo la yiraahdo wadajir sidaas daraadeeda markaan dadkayga u soo doontay kursiga hoob 180 markaan dadkayga u soo doontay waxay iga ogolaadeen dadkaygii inay kursigaas isiyaan maxaa yeelay Soomaaliya waa ogtihiin Soomaaliya waxa wax lagu qaybsadaa 4.5 dadka Soomaalida siyaasadda ka shaqeeya inta badan 4.5 waxa u maleeyaan inay kor ku agtaa kaliya saas maahan 4.5 ma al qabiilada hoos markii loo galo xataa 4.5 ka jiro oo wax loo qaybsado marka nasiibkayga ayaa markaan ku soo aaday inaan kursigan helo ergadeedii iyo beesheedina igu sharafto aad ayaan ugu mahadcelinayaa waana maasantiin